sidoo kale agaasimaha Radio Muqdisho Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna sheegay in howlaha uu raadiyaha qaranka u hayo bulshada Soomaaliyeed uu socon doono isla markaana ay sii wadayaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha qaranka howlaha ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. dadkaas walaalaheena oo geeriyooday runtii waa dareemayna xanuun waa walaalaheen waa saaxiibadeen waa raggii aan wada shaqaynaynay waa laf dhabarkii shaqadeena haddana sidaas ay tahay waxaan ku qanacsanahay qadaha Ilaahay iyo qadarkiisa midna waa ka murugeysanahay oo ah dulmiga iyo xadgudubka iyo jawrka ay mujrimiintu u soo maleegeen waa ka xunnahay waana ka murugeysanahay dhanka kalena qadaha Ilaahay iyo qadarkiisa ida jaa ajaluhum la yastaakhiruna saa'atan wa la yastaqdimuun saacad kama hormari karin xilligoodii kama dib dhici karin intii hooyadood urkada ay ku jireen Ilaahay wuxuu u qadaray inay saacadaas waqtigoodu dhamaato dhinacaasna qadaha Ilaahay qadarkiisa waa ku kalsoonahay Radio Muqdisho SNTV way tibi doonaan walaalihii ka tagay dhanka kale waxaan diyaar u nahay dariiqa ay mareen inaan wada marno annagoo ku taagan oo dalkii iyo dadkii iyo diintii annagoo u adeegayna oo khidmad ku jirna inaan dariiqaas ku wada baxnaan diyaar u nahay ma ku niyad jabayno mana caqaladayn karto isbedelna kuma samayn karto siyaasadii aan ku shaqeeynay isbedel kuma samayn doonto